waxaana ka cudur daaranayaa in markii dhaweyd afku iga xaday magaalada Dhuusamareeb in isku horimaadkaasi uu ka dhacay laakiin halka isku horimaadku uu ka dhacay waa magaalada Caabudwaaq waxaana halkaasi isku dilay habeenkii xalay Jimcuhu soo galayay iyo saaka subaxnimadiiba maleeshiyaad ku hirdamay gacan ku haynta saldhigga magaalada sida warbixintan uu noogu soo diray wariyahayaga Mahad Xasan Diini hal qof ayaa ku dhintay dhowr kalena waa ay ku dhaawacantay kadib isku horimaad xalay iyo saaka ka dhacay saldhigga booliiska ee degmada Caabudwaaq ayadoo dagaalkaasi u dhaxeeyay ciidamo isku dhaf ah oo kala taabacsanaa ciidamada xoogga Ahlusunna wal Jamaaca iyo sidoo kale booliiska Army Interpolka iyo maleeshiyad beeleedyo ayaguna dhinac ka soo horjeeda ciidankan ay la dagaalamayaan oo maalinimadii shalay lagu wareejiyay gacan ku haynta saldhigga booliiska degmada Caabudwaaq abaar 7 fiidnimo ilaa xala saqdi dhexe ayaa rasaas la isweydaarsanayay hugunka madaafiicna laga maqnay gudaha degmada Caabudwaaq ayadoo inta badan shacabka reer Caabudwaaq ay ahaayeen kuwa xalay ku soo jeeday indhahooda ogtu waa baranaya saaka dagaalka dib u bilowday inkastoo uu sageysan khasaare aad u badan cutubyo ciidamada ka tirsanaa maamul goboleedka Ahlusunna wal Jamaaca ee bartamaha gobolada dhexe dalka Soomaaliya oo gurmad ku soo galay gudaha degmada Caabudwaaq ogtu waa bari ee saakay ayaa xoojiyay ciidamada dhinacooda ka tirsanaa isla markaana saldhigga gacanta ku hayay oo xalay weerarka lagu qaaday kuwaas ku guuleystay maleeshiyaadka in ay ka saaraan saldhigga booliiska degmada Caabudwaaq iyo sidoo kale aagu u dhawaad dagaalku ka socday iyadoo iminkana ay u farxadeen meel ka baxsan magaalada waxaana markii xabaddu ay istaagtay labada dhinac ay ku guuleysteen gacan ku haynta saldhigga booliiska ee degmada Caabudwaaq oo si buuxda loogu wareejiyay ay saaka socod iyo dhoolatus ku soo mareen gudaha iyo daafaha degmada Caabudwaaq kuwaasoo gabi ahaanba maanta lagu galbinayay la arkayay in wadooyinka waaweyn ee degmada Caabudwaaq gawaari yaryar oo shaqalaysan iyo kuwa dagaalka ay wataan Ahlusunna wal Jamaaca xoog ka tirsan maamulka bartamaha gobolada dhexe dalka Soomaaliya ee shacabka reer Caabudwaaq oo u durbaantumay isla markaana soo dhaweeyay arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii guddi ka kala socday dhinacyada kala gedisan ee degmada Caabudwaaq oo isugu jira ganacsato aqoon-yahano siyaasiyiin waxgarad odayaal iyo sidoo kale culimaa u diin ay ka tashadaan shirada ay u fadhiyeen muddooyinka ugu dambeeyay sidii loo soo celin lahaa ammaanka waqooyiga gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Caabudwaaq oo iyadu muddooyinka ugu dambeeyay la leexleexay xaalada ammaan darro telefishinka caalamiga ah Universal ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka reer Caabudwaaq waxayna ka warbixiyeen sida wax u dhaceen yeeminka xaaladdu sida ay tahay bismillaahir rahmaanir rahiim waa Bashiir Warsame jaamac afgooye magaalada tan iyo xala hal saac xabad baa socotay ciidanka Ilaahay waa lagu kala baxay saaka waa barigii magaaladana waxaa la wareegay ciidamada Ahlusunna wal Jamaaca waana soo dhaweynaa qaasatan anaga Bashiir 2 sano iyo 3 bilood baan qori waday waana iska dhigay saaka alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaana weeye odayaasha magaalada Caabudwaaq baan ka mid ahay siyaasiyiinta degmadaan ka mid ahay waxaana u watay wax kale ma ahan nafsadaydan ku waardiinayay beelaha Caabudwaaq beel ka mid ah baan iskaga waardiinayay 3 kiiloomitir iyo 3 tilaaban jiraan iskaga waardiinay aniga waxa la yiraahdaa Cabdirashiid Cabdullaahi Warsame magaalada tan iyo xalay waxa ka dhacay dhibaatooyin aad iyo aad loola yaabo sidaas awgeed waxaan hadda raalli ku nahay nabadgelyada ka dhacday xaaladda guud ee dhinaca nabadgelyada iyo isdhexmarka bulshada oo xalay iyo saakayba cakirneed ayaa iminka sideeda ku soo laabatay iyadoo shacabkii ganacsatada iyo dadweynaha iminka ay dib u fureen goobahooda ganacsiga oo saaka albaabada la isugu laabay Mahad Xasan Diini telefishinka caalamiga Universal Caabudwaaq